Hooyo ayaa waxay tiri waxa aan dhalay 3 wiil. 3dii wiil waa ay wada guursadeen. Maalin maalmaha ka mid ah waxa aan booqday wiilkayga ugu weynaa ee curadka ahaa. Habeenkiina waan u hoyday. Subaxii markii ay gaadhay waxaan ka codsaday inay keento biyo weyso. Waan weysistay oo tukaday. Biyihii intii ka soo hadhay ayaa waxa aan ku shubay furaashkii aan ku hurday xalay. Markii ay gaadhay subaxii ee ii keenaysay shaaha quraacda ayaa waxaan ku idhi inanteedii waa ka xaalka dadka waaweyn. Xalay furaashka waan ku habeediyey. Waa ay igu xanaaqday oo wejiga ii bedeshay. Waxa ayna igula hadashay kelmadaha kuwa ugu adag. Waxa ayna igu tiri meed furaashka qallaji mar damban arrinkaas oo kale ha sameynin haddii kale. Kadib waan u meeray oo u qallajiyay furaashka. Kadibna waan ka tegay. Waxaan u tegay wiilkaygii dhexe oo aan u booqday sidii oo kale ayaa aanan ku sameeyay. Waa ay xanaaqday oo sare u qaylisay. Waxayna u sheegtay ninkeeda kaas oo ahaa aniga inankayga. Isaguna waxba ma uusan samayn. Gurigiina waa uu iga saaray. Kadibna gurigoodii waan uga tegay. Waxaan u tegay wiilkayga ugu yar gurigiisa ayaan u hoyday habeenkii. Waxa aanan ku sameeyay sidii aan ku sameeyay labadii xaas ee hore ee ay wiilashaydu qabeen. Sidii oo kale ayaa aanan ku sameeyay. Aroortii markii ay keenaysay quraacdii ayaan u sheegay inanta in aan xalay furaashka aan ku kaadiyay. Kadib waxay tiri dhib ma leh hooyo, annaga oo yaryar imisa ayaan ku kaadinay marooyinkiina ama dharkiina. Intay qaaday furaashkii oo ay meedhay ayaa ay qallajisay. Kadib waxay ku tiri inanteedii waxaa jirta gabadh aan saaxiibanay taas oo ii dhiibtay lacag tirina suuqa iga soo iibi dahab. Mana garanayo qiyaasteeda. Waxa ayna leeg tahay xajmigeeda iyo qiyaasteedana adiga oo kale weeyaan ee isii qiyaasta gacmahaaga. Kadib waxay tagtay suuqa dahabka oo lacag badan iyo maal badan oo ay lahayd ayaa waxay ku soo wada iibisay dahab badan. Kadib waxay isugu yeedhay inimadeedii iyo xaasaskoodii guriga ay degan tahay. Kadib dhammaantood waxay soo wada hordhigtay dahabkii. Waxayna tiri arrinku waxa uu yahay inaan furaashka biyo ku shubi jiray aysan wax kale ahayn. Dahabkii oo dhan waxa ay wada siisay inankeedii ugu yaraa ooridiisii oo ay gacmaha iyo luqunta ay u wada gelisay. Kadibna waxay tiri waatan inantayda dhabta ah ee hadhow haddii aan gaboobo aan sii cuslaado dhinaceeda aan u noqonayo. labadii xaas ee kale waa ay ka murugoodeen oo ka qoomamayeen wixii ay sameeyeen. fahal jazaa'u al-ihsaani illa al-ihsaan. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.